madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud waxaan si bayaan ah ugu sheegayaa maanta in Puntland markab weyn ay la yihiin dowladda Imaaraadka ay ka soo dejiyeen 250 technical hub ah oo ay la socdaan ciidamadii hubka ku shaqeynayay oo saraakiil xigeenno oo u dhashay Israa'iil iyo Imaaraadka in ay halka degayaan ilaa caluula inay degaan oo ay ku tala galeen dhinaca xeebta dhan ilaa ay Puntland inay la wareegaan heshiis uu la galay Saciid Cabdullaahi Dani iyo siyaasiyiin ku sugan Puntland in khayraadka meesha ku jira macdantii iyo meel qarxi jirtay dhul oo ay god ay qodayeen qarxi jiray qalab oo casri ah inay u keensadeen ee halka macdanta kala bixi doonaan dowladda Imaaraadka iyo dowladda Israa'iil oo dabada ka wada dowladda Mareykanka United States of America deegaankaas iyo dhulkaas iyo shacabka reer Puntland iyo siyaasiyiintooda waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha qaranka arintaas in diiradda la saaro lana ogaado sababtii dowlad kale oo shisheeye ah in ciidamo iyo hub casri ah in ay kala soo degaan Puntland fiiro gaar ah loo lahaado qaranka iyo dowladnimada dalka waxa dhibayna loo ogaado Saciid Cabdullaahi Danina ay ku tahay gof Soomaaliyeed oo qaranka iyo dowladnimada Soomaaliyeed uu ka galay anoo garaadka guud oo beelaha Jubbaland ah inaan shacabka u iclaamiyo garaad Cali Maxamed Xasan oo ah ciidamadaas hadda ka degaya Puntland muddo 7 maalmood ah ayaa hubkaas laga dejinaya aan ogahay ayaan ugu baaqayaa dowladdeena qaranka inaysan xog iyo hab siyaasadeed iyo hab qarameed inaysan waxba ka ogeyn inaan anaga ka qaranayna aan u socono qarannimo Soomaaliyeed iyo dowladnimada inaan dhisno anoo ku sugan Baydhabo garaad Cali Maxamed Xasan ujeedka ay ka leeyihiin waxa weeye khayraadka oo dabiiciga meesha ku jira waxa ku jira macdan oo aad u dhaqaale badan in ay kala baxaan Imaaraadka oo tiradooda guud ay gaarayso sidoodaba 2 milyan in ay badda cas iyo badweynta India in ay la wareegaan oo anaga taa Jubbaland aan ka cabsi qabna dhinacayna inay sidaas Axmed heshiis hoosaad oo la gali doono oo dhibkaas adagna uu sameyn doono intuu soo sameeyna ayaan Baydhabo u degay in ciidamadaas aan geeyay Baydhabo aan qarsoodida u geeyay aan loo ogaan si deegaanada aan ugu soo dhaqaaqay oo qarannimo dal aan ku xoreynaa duulaaraal ka noqdo baaqa shacabka Soomaaliyeed inay foojignaadaan xogta anigoo ku sugan Baydhabo oo reer Puntland aan u cadeynayo iyaga ay warkayn ayna ka aamusan yihiin aan xuquuq wadaniyad aysan ku salaysnayn ay tahay inaysan aamusnaanin shacabka ku nool Boosaaso iyo shacabka ku nool Garowe in ay arintaa ka dhiidiyaan dareemaan in dalkii ayagoo taagan dhulkii iyo dalkiiba la iibsanayo oo sharci ahayn waxaan ugu baaqayaa inay wixii xog oo hadda aan gudbiyay wixii dheeraad ah iyaga ay meesha ku hayaan aysan la baqin shacabka reer Puntland ay soo gudbiyaan anoo ku sugan Baydhabo oo dadaal adag ugu jiro xoreynta Jubbaland gobolka Jubbada Dhexe mataladii iyo shacabka 15 sano meeshaas dowladihii isku soo bedelay oo Axmed Maxamed Islaam intaas oo madaxweyne soo bedelay cabrunta iyo dhibaatooyinka dhulka lagu hayo oo dhulkaas si aan u xoreyno aan Baydhabo si siyaasadeed aan u tagay mar dhowna Baydhabo aan ka sii duulay doono aan u duulay doono Addis Ababa ayaan u cadeynayaa shacabka Soomaaliyeed si deegaanada iyo dhulkii dhan xoreyntooda aan u dhaqaaqay iyo guulifkii dagaal aan ku dhawaaqay ayaan ka dhabeeyay